koobka qaaradda America mise aan idhaahdo koobka qaaradda aan idhaahdo koonfurta qaaradda America mise Copa America ayaa dabcan furmi doona mise qabsoomi doona dabcan bishan lixaad ee ugu soo fooda leh 12 Brazil ayaana martigeli doonta koobkan markii shanaad markii ugu horeysay ay qabato waxay ahayd muddo laga joogo dabcan 100 sano taasoo ku beegnayd 1919 markii labaad oo ahayd 1922 markii saddexaad oo ahayd 1949 markii afraad oo ahayd 1989 iyo weliba hadda oo ah markii shanaad oo ay qabato afartii jeer ee hore ee ay dabcan martigeliso koobkan koonfurta America ayay dabcan afartii jeer ba guuleysatay markana waxay dhaha taageerayaashu eegi doonaan inay markii shanaad ay qabato koobkan inay ku guuleysato waxaynu arki doonaa waa wadamada ugu tunka weyn sida Brazil, Argentina, Uruguay, Chile iyo welibana Colombia oo fooda istari doona waxaynu sidoo kale arki doonaa laacibyo ay kamid yihiin Neymar, Messi, Suarez, Dybala, Aguero, Firmino, Di Maria, Coutinho iyo welibana kuwa kale oo badan oo dabcan badbaad garan karayso waxaa ku jira koobkan koonfurta America mise Copa America mise qaaradda America oo wadamada Qatar iyo Japan sidee taasi haya u dhacday dabcan sida u dhacday ayaa si ay u noqoto 12 mise 16 wadan oo dabcan ku tartama koobkan ayaa waxaa la casuumaa 2 qaran mise 4 qaran si ay u buuxiyaan shaxda 12 mise aan idhaahdo 16 haddaan tusaale soo qaato tan iyo 1993 waxaa la casuumay qaramada ku midoobay CONCACAF kuwaasoo ka socda wadamada waqooyiga bartamaha America iyo weliba Caribbean-ka sababtuna waxay ahayd dhaqan iyo daris ayay la wadaagaan wadamada ku midoobay aan idhaahdo CONMEBOL ee dabcan ku dhisan koonfurta America haddaan soo qaato Mexico ayaa la casuumay tan iyo 1997 iyadoo intii tartama kasoo muuqatay ilaa tan iyo 2016 sidoo kale Costa Rica ayaa la casuumay iyada oo kasoo muuqatay 1997 2004 iyo dabcan 2016 sidoo kale wadanka Honduras ayaana kasoo muuqatay 2001 halka Jamaica la casuumay 2015 iyo 2016 waa labadii tartan ugu dambeeyay wadanka Haiti oo iyadana 2016 ayaa la casuumay Mareykankana 1993 1995 2007 iyo 2016 ayaa la casuumay oo ay welibana 2016 lagu qabtay wadankeeda halka Japan iyadana 1999 la casuumay balse diiday marar badan oo la casuumay balse sanadkan 2019 ayaa dabcan marka la casuumay casuumaadina ay ka aqbashay iyo weliba wadanka Qatar oo sanadka 2019 la casuumay oo ahna dabcan markii ugu horeysay koobkan aan idhaahdo Copa America lagu casuumay mise koobka koonfurta America lagu casuumay oo iyaduna dabcan isla sanadkan kusoo guuleysatay koobkii wadamada ay ku midoobeen Asia ee AFC wadanka Panama ayaa sidoo kale la casuumay sanadkii 2016 طبعا كل لعبة جروبية كلها بتشرب جروب A ayaa waxaa ku wada jira wadanka Brazil oo dabcan martin loo yahay wadanka Peru sidoo kale Venezuela oo dabcan mudaharaadyo waaweyn ka socda iyo weliba wadanka Bolivia ayaa kula jira Brazil group A
halka gruubyana ay ku jiraan wadamada Argentina oo markaa rabtay inay codkorsato dabcan weydey finalka 2017 2015 iyo 2016 rabto video linkiga taabo. sidoo kale waxaa ku wada jira waa wadanka Colombia, wadanka Paraguay iyo waliba wadanka Qatar oo la casuumay markeedii koobaad sidaan hore u soo sheegay. halka gruupka ugu dambeeya Group C ay ku wada jiraan wadamada Uruguay oo dabcan 2018 ciyaarihii adduunka adkeyd, wadanka Ecuador iyo Japan oo lagu casuumay koobkan markeedii labaad tan iyo 1999 muddo dabcan 20 sano ka hor ah ee ugu dambeysay koobka inay ka qayb qaadato, iyo weliba wadanka Chile oo 2 jeer ugu dambeysay koobkan qaaday markeedii ugu horeysay, sidoo kalena ah difaacan doona koobkan inuu mar saddexaad dabcan waxayna laga sugnaada waa bisha dambe annaga oo bashbash iyo barwaaqo ku ciidnay oo daawana koobkan lana daawana asxaabaheena. marka talo Argentina miyay ka cadgoosan doontaa Chile oo 2 final dhigaha ka garaacday Argentina? Chile ma laga yaabaa inay koobkeedii saddexaad hanato 3 jeer oo isku xigta? qatar magac iyo sharaf ma soo jiidi doontaa muslimiinta iyo weliba wadamada islaamka? sidoo kalena Japan reer Tokyo miyay kurbada ka dejin doontaa markan ay dabcan koobkan hanan doonta iyagoo lagu casuumay? waxayna wada sugnaada waa koobkan iyo bisha soo socota qadar Rabbi subxaanahu wa tacaala na gaarsiiyo.